waayahay kusoo dhawaada videogan waxaan idin tusin doonaa si alaabta ay kugu iibsanto waxaad u baahan tahay mar kastaba in aad qiimeysid qiimaha. markaad qiimeynaysid waxaad u baahan tahay in aad eegtid alaabta nooca aad keenayso oo Amazon best sellers rank aad ku raadinaysid. alaabta Amazon isla markaas ku iibsanto miyay tahay mid rankigeed uu high u yahay. waxaad fiirinaysaa alaab inta u dhaxayso 1 ilaa iyo 200. alaabta koowaad ilaa iyo 200 ugu hore miyay soo gashaa. micnaha waxaa waaye pageka koowaad alaab imaata miya, alaab inta badan la raadiye miya ayaad raadinaysaa. marka waa best sellers rank ayaad fiirinaysaa. midda kale waa inaad fiirisaa alaabta culeyskeeda miyay tahay alaab culeys badan markaad soo iibsanaysid oo aad soo xawilaysid ama soo ship garaynaysid. alaab lacag badan kugu baxaysa miya. markii Amazon ay qaadayso meel ay geynayso lacag badan laga jaranayo miya. alaab badan oo shipmentiga xawilaada lacag badan laga jarayo miya. waa inaad fiirisaa. midda kale waa inaad fiirisaa miyay leedahay alaabta aad keeni rabtid, nooca aad keeni rabto kuwo aad loo review gareeyay 3 to 5 review ay leedahay miya. micnaha waxaan ka wadaa waxaad fiirin haysaa product isla markaas nooca rabta aad keento oo suuq ay ku jirto. waxaad rabtaa brand inaad usoo samaysato. Amazon FBA waxaa waaye waa alaab brand nooca aad rabtid aad keensanaysid. marka brand aad usoo yeelanaysaa. miyay tahay alaabta aad keenayso alaab inta badan dadka ay ka faaloodaan review ay ku bixiyaan. miyay tahay alaab yar isla markaas kartoon yar lasoo gelin karo oo boxkeed aan weyneyn. waayo Amazon waxay kugu charge garaynaysaa alaabta haddii boxkiis uu weyn yahay lacag dheeraad ayaa storage fees ayaa lagu charge garaynaa. marka waxaad fiirinaysaa best sellers rank, reviewgeeda, commentigeeda, waxaad fiirinaysaa weightkeeda. intaas dhan ayaad fiirinaysaa si aad u qiimeysid alaabtaas in ay tahay alaab ku iibsanto aad soo gadan kartid. intaas markaad hubisid haddana waxaad u baahan tahay sidaas oo kaleed alaabta aad dooratay in aad ku raadisid mid ayada la mid ah oo kale oo suuqa ku gadmi haysid ilaa iyo siday u gadmi haysa meeqa ayay bishiiba ay samaysaa. markaas waxaad aadaysaa softwareda sida Jungle Score ama Amaze All ama kuwa kale la isticmaalo. inta badan waxaan isticmaalaa Jungle Score, Amaze All ayaan isticmaalaa. intaas ayaad u baahan tahay inaad iska hubisid. mar haddii aad heshid productiga aad u baahan tahay waxaad aadaysaa qaybta kale xigto oo videoga ku salaysan raadinta design. qofku design gareeyo nooca kalarka aad u baahan tahay halkee ayaa lagu raadiyaa waayd. marka waxaad aadaysaa Fiverr. aan isla wada aragno sida loogu raadiyo videoga la xiga alaabta sida designer loo raadiyo.